hambalyo waxaan halkan uga hambaliyeynayaa midda reer Somaliland in aniguna ka mid ah dagaalkii maalintii la qaaday ee dalka lagu xoreeyay mid buu ahaa kii labaad ee diblomaasiyadda bilaabmay xasan gurguurtana awalba gacan buu iska xidhi jiray lug iyo gacan talantaali ah iska xidho hadduu doonayo imika saani ha u gurguurto imika waxa laga hadlayaa Puntland nimankii ictisaan baa ka hadlaya oon maalin qura argagixisada iyo dagaalada ku dhacaya dhibaatooyinkooda aan ka hadlin ayaa maanta halkaa arrimaha siyaasiga diin ku salaynaya imaaraadka la xidhiidhaan ayaa cilaaqaad lale tukriga la xidhiidhaan baa cilaaqaad lale sacuudiga lale maxay tahay qadar baa lale dunida muslimka oo dhan baa lale waxna waa cilaaqaad siyaasadeed waxna waa wax diimeed diinta iyo siyaasadda kala duwan baan leeyahay nimankii ictisaan baa ka hadlaya oon maalin qura argagixisada iyo dagaalada ku dhacaya dhibaatooyinkooda aan ka hadlin ayaa maanta u hambalyeynaya madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo dowladda dhammaan hambali ayaan leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim waa Roode Axmed Yaasiin qarankii hambalyo waxaan halkan uga hambalyeynayaa midda reer Somaliland in aniguna ka mid ahay rooliyo caruur waxaan leenahay wixii aynu muddada badan ku taamaynay ilaahay wayna gaarsiiyey ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa calanka tawxiidka leh haddii uu nimankaa ilaahay uga hadliyey taasiba waxa weeyaan arrin mucjisooyinka ka mid ah waxaan doonayaa inaan u sheego dadkeena reer Somaliland dagaalkii maalintii la qaaday ee dalka lagu xoreeyay mid buu ahaa kii labaad ee diblomaasiyadda bilaabmay waxaa la doonayaa qof kasta oo wax tabanaya qof kasta oo mucaarida qof kasta oo muxaafida in gacmaha la isu qabsado in jihada loo wada jeesto in indhihiina aad kor u qaadaan oo hareerihiina eegtaan ayaa loo baahan yahay maanta waa aragtaan dad baa jiif iyo joogba diiday waxaan leeyahay jiif iyo joogba ha diidaan xasan gurguurtana awalba gacan buu iska xidhi jiray lug iyo gacan talantaali ah iska xidho hadduu doonayo imika saani ha u gurguurto halkuu doono ha u gurguurto waxaan leenahay dagaalkii labaad baa inagu bilaabmay kii hore waynu guuleysanay kii labaad waynu guuleysanay kii diblomaasiyadda bilaabmay kaa diblomaasiyadduna in dhexdeena lasoo galo uma baahnin imika waxa laga hadlayaa Puntland nimankii ictisaan baa ka hadlaya oon maalin qura argagixisada iyo dagaalada ku dhacaya dhibaatooyinkooda aan ka hadlin ayaa maanta halkaa arrimaha siyaasiga diin ku salaynaya waxaan leenahay imaaraadka la xidhiidhaan ayaa cilaaqaad lale tukriga la xidhiidhaan baa cilaaqaad lale sacuudiga lale maxay tahay qadar baa lale dunida muslimka oo dhan baa lale waxna waa cilaaqaad siyaasadeed waxna waa wax diimeed diinta iyo siyaasadda kala duwan baan leeyahay wadaadada ictisaam innaga lafdigeenna kulley qaar baa beerka dhulka ku haya oo inala sugaya inta ay xafladuhu dhammaanayaan oo iska soo kici doona waxaan leeyahay beerka dhulka ha loogu celiyo oo afka ha laga saaro qabaal waxaan leeyahay guul iyo gobonimo waxaan si gaar u hambalyeynaya madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo dowladda dhammaan hambali ayaan leeyahay waxaan leeyahay ha la is ilaaliyo la foojignaado ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo kuman kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsantahay sida aad noogu xidhan tahay